الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. waxaan soo haynay risaaladii matnu lbinaa. waxaan weli ku dhex jirnaa fasalkii ugu dambeeyey alficlu min xaysu asixatu walictilaal, ama loo yaqaano alaqsaamu asabca. mualifka ficilku wuxuu u qeybiyey ilaa saxiixin wa gayru saxiix. saxiix waa ka soo hadalnay, gayru saxiixa wuxuu u qeybiyey 6 qaybood. 4 ka mid ah waa soo qaadanay: almithaal waljwaf walnaaqis wallafiif. waxaa noo dhiman almudaacaf walmahmuuz. darsigana maanta wuxuu ka bilaabanayaa almudaacaf. mudaacafka laba loo qeybinayaa: mudaacaf thulaathi ah iyo mudaacaf rubaaci ah. mudaacafka rubaaciga mualifka muusan tanaawulin, muusan ka hadlin. sababta waxa weeye xukmuhu ka xukmi saalimi. mudaacafka rubaaciga wax tagyiira kuma imaanayo markii lala xiriiriyo damaa'irta, idan marka wuxuu la mid yahay xagga xukunka saalimka. waana sababta keentay mualifka inuusan mudaacafka rubaaciga ka hadlin. laakiin mudaacafka thulaathiga tagyiir baa ku imaanaya. marka axkaamta soo socota waxay khusaysaa ficilka thulaathiga mudaacafka. ama arubaaci almudaacaf فهو كالسالم حكما. نعم. وحيل مركب مؤلف رحمة الله عليه: والإدغام إدغامك إدخال أحد المتجانسين أي المتماثلين لaba xaraf oo isku nooca mid ka mid in la geliyo fil aakhari midka kale. oo xarafka koobaad baa lagu idgaamayaa xarafka labaad. midka koobaad waxaa loo yaqaanaa mudghaman, kan labaadna waxaa loo yaqaanaa mudghaman fiihi. maadaama mudaacafka thulaathiga caynta iyo laamta la isku idgaamayo, mualifku wuxuu ku qasbanaaday inuu idgaam wax la yiraahdo uu tacriifiyo. marka idgaamka wuxuu ku tacriifiyey 2 xaraf oo isku nooca, midka hore in la dhex geliyo midka dambe. lafdigan al-idgaamu waa masdar adghama yudghimu idghaaman. asalkiisu wuxuu thulaathi, hal xarf lagu ziyaadiyey waa hamsatu lqadci fi awwalihi. waana cibaarat alkuufiyiin, culamaa alkuufa. baabkani wuxuu yaqaanaan baab al-idghaam. cibaarada sibawey walbasriyiin waxa weeye al-idghaam bitashdiid, oo ayagu waxay ka keenayaan baab al-ifticaal. asalku wuxuu ahaa idtaghama, kadib baa ta'dii daal loo bedelay, kadibna ta'dii daalka loo bedelay baa waxaa lagu idghaamay daalka. markaas wuxuu noqday iddaghama yaddaghimu iddighaman. algali wuxuu noqday al-idghaam. marka cibaarat alkuufiyiin waa baab al-idghaami, عبارة البصريين نواه باب الادغام. نعم. مؤلف كحيري إدخال أحد المتجانسين. وحن رأسه برني إدغامك صدح وقيب سماي عند علماء التجويد: إدغام المتماثلين، إدغام المتجانسين، إدغام المتقاربين. إدغام المتماثلين وحكو تعريفيان ما اتفق مخرجا وصفة، ولا بحرف وحق مخرج كأي صفة اسكوافقي. سيدا اضرب بعصاك، بعد كجرتا اضرب يا بعد كجرتا بعصاك حق مخرج كأي صفة واسكوافقين واسكو النوع. كاس حلو يقانا إدغام المتماثلين. إدغام المتجانسين كوحو يقانا ما اتفق مخرجا ولا بحرف حق مخرج اسكوافقية واختلف صفة، لكن صفة اسكو خلافية. مثلا التاء والطاء كقوله تعالى: إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. marka qaalat ta'daasi waxaa lagu idgaamay ta'da ku jirta طائفة. التاء والطاء xagga makhrajka waa isku mid, laakiin xagga sifada isku khilaafsan yihiin. marka waxaa loo yaqaan idgaam almutajaanisayn. idgaamka qaybta saddexaad walakhiir waa idgaam almutaqaaribayn. waa 2 xaraf oo xagga makhrajka isku soo dhawaaday, kalqaafi walkaaf, كقوله تعالى: ألم نخلقكم. marka nakhluqkum qaafta iyo kaafta waa la isku idgaamay, sababtoo ah alqaaf walkaaf xagga makhrajka waa mutaqaaribaani, waa isku dhow yihiin. qismada marka saddexda ah waa binnadari ila al-asli, markii asalka laga fiiriyo waay. ama min xaythu nutqu markii la fiiriyo kulligood waxay iskugu biyashubanayaan idgaam almutamaathilayn. sababtuna waxa weeye xarafka koobaad waxaa loo bedelayaa min jinsi alxarf alakhiir, kadib baa la isku idgaamayaa. mithaalka fiiri hadda: id qaalat طaa'ifa. meesha waxaa qoran waa qaalat, laakiin xagga dhawaqa fiiri: id qaalat
الطائفة تأدي مبلا مقلبة صببته انتوسن إدغام كدعين تأدي وحلو بدريا من جنس الحرف الأخير الطاء كدي بالسكو إدغامية وحلم إذا ألم نخلقكم قافتي من مغليسد حق قرآن قاف ويتالله لكن قافكي كاف لو بدليا مركي اللي بدله أي هذا أنا لسكو إدغامية مرك إذن حق النطق مركي لفيريو كل واحد منهم يؤول إلى إدغام المتماثلين وأنا صابتك أنتي علماء صرفي إنك هذان إدغام المتماثلين حتى دير هذا المتجانسين متماثلين بأجيدا وأيقوحي في دائما من حيث النطق. نعم. وهذا كبر الوقت تقسيم كان بالنظر إلى الأصل قسم هذا عقلك وحكينيسا إن أفر لو قيبيه صابتنا وحوية لا وضع حرف إن اسكو مخرج يهين إن اسكو مخرج يهين وحكا دحية ماله هذا اسكو مخرج يهين لبنوع ويان إن استفادة اسكو وافقان أما اسكو خلافان هذا استفادة اسكو وافقان وإدغام المتماثلين هذا استفادة اسكو خلافان وإدغام المتجانسين لا بقي بك صوب حدي صومه هذيك لمخرج يهين عقلك وحكينية من حيث المخرج لبضان حرف مسكو دويهين مسواك لفوقيهين هذا اسكو دويهين وإدغام المتقاربين هذيك لفوقيهين وإدغام ماشي معناه marka qismada caqliga afarta weeyaan laakiin saddex kamida idqaam ba ka suurtooda hal kamidana idqaamku waa mumtanic sababtuna waxa weeyaan bu'dul makhraj labadan xaraf haday min haythu al makhraj ay kala fog yihiin idqaam ma suurtoobiyo naam baxthiga xiga waxa weeyaan idqaamka hal kalimana wuu galaa laba kalimana wuu galaa amthiladan soo qaadanayna waa ka dareemi kartaa مثلا اضرب بعصاك يقوله تعالى إذ قالت طائفة إدغام كاني وحوق لي لبا كلمة دود قوله تعالى ألم نخلقكم إدغام كان سوى كلمة في كلمة واحدة بحثك حقا وحويان حروف تنمى لسكو إدغامي كرا مثل حروف تقار كود أي ممتنعة أو إدغامك وسنك سورتوبين إدغامك وباب متسعة هاتو بلارن جميع الحروف نوال لسكو إدغامي كرا مركي لقريبه الألف لبا ألف لسكو ما إدغامي كرا حروف تكلا لسكو إدغامينا وحشر دئة بعد المخرجين إن لوايو بمعنى لابد حرف لسكو إدغاميو إن اسكو مخرج نقضان أما أغيران مخرج كود اسكو دويهي لكن هديك لفقيهين مايا بحثك أولا بيه مؤلف رحمة الله عليه وحقوق أبصدي إدغام المثلين في كلمة واحدة إدغام المتماثلين أيو كهد لي كوان كالكهد لي مايو متجانسينك إيه متقاربينك علماء التجويد بك هذاش إدغام كهد نوان قيمنا وحن قيمنا في كلمتين وفي كلمة مؤلف في كلمتين كهد لي مايو وحكاهد لي دونا إدغام المثلين في كلمة واحدة صببت بحث الصرف وحويان الكلمة لكن قسموين كلا وحا انت بدن كهد لا علماء التجويد أيقول سي عام إدغام كهد لان وقاب كان هذا مركا نصوص شيقنين مركا مؤلف كهذا الكيسان دي بقصة النقرن وحير الإدغام إدخال أحد المتجانسين ولبا حرف أو اسكو نوعه متكود إن لدحق لي في الآخر متككله مركا درسي ما انت هلقا نوشوغو ومقدمة عن كهر مريني باب الإدغام درسي سوصة وحنوغاد لدونا إن شاء الله تعالى أنواع الإدغام بحث المضاعف ومهم أرديدنا ولباه مركا تاسا كنت مركا مقدمة كهر مرينو هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.